culummada Soomaaliyeed masaajidada joogtay reerkaaga iyo gabdhahaaga iyo caruurtaada loo soo dhacaya haddaan fitnadan iyada laga hortagin. bismillaahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta kelimadaydu waxay si khaasa ugu socotaa masaajidada iyo a'immada iyo ducaadda iyo culummada Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ay ka joogaanba, haddii ay joogaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan, Soomaalida xorta iyo midda aan xorta ahayn intaba, hadday kala joogaan East Africa iyo Afrikadaas hadday kala joogaan, haddii ay joogaan Carabaha wixii u suurtagal ah tabcan, haddii ay joogaan Amerika iyo Oroba iyo Australia, meel walba oo masjid Soomaaliyeed oo ay culummo Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan, awooddoodana ay siisay inay berri mimbarka iyo mikrofoonka ay qabsadaan anigoon idin amraynin, xaqna aydan iigu lahayn, darajadeedana aana gaadhin inaan idin amro, laakiin waa talab, laakiin waa codsi walaalkiin Abu Talha Turkiya uu idinkaga baaq uu idinkaga soo dirayo, qalbigayga waxa ku jirana aan doonayo inaan idinla wadaago, aad iga aqbashaan arrintaas ayada ah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. arrinta aan masaajidada iyo ducaadda iyo culummada berri oo jumco ah aan ka codsanayo biidnillaahi waa laba qodob weeye. cidda fulisa ilaahay waxaan u weydiinayaa jalla jalaaluhu inuu ajirkeeda siiyo, cidda aan fulinina wax dhibaato ah male, waa wax qalbigayga ku jira. qodobka koowaad, sida aad maanta aad ogtihiinba magaaladan hawada ka dhisan, waddankan hawada ka dhisan ee social media la yidhaahdo waa dowlad aan madaxweyne lahayn. waad ka warqabtaan, culummadu in badanna way ka warqabaan, bulshadii inteedii badnaydna way ku yaacday, rag iyo dumarba, mid yar iyo mid weynba waa ay ku yaaceen. laba jirrada ayaa xataa si fiican maanta social mediaha u isticmaala. waxaan markaa ka jira waxaan indhaha laga laaban karin ayaa ka jira social mediaha oo akhlaaqda ummadda Soomaaliyeed khatar ku ah, saad ka warhaysaanba. sidaa daraaddeed waxaan walaalayaal idinkugu baaqayaa oo codsigayga inaad qiimaysaan oo qadarisaan aan jeclahay, insha allahu jumcada berri ah in wadaad walba iyo imaam walba uu mawduuca ku soo qaatay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, si aan bulshadeenna aan qayb oga noqonno wacyigelinteeda. taasi waa codsiga koobaad biidnillah. qodobka labaad, idinkama qarsoono Soomaaliya oo dowladeedu ay hash tahay, Soomaaliya oo qabaliyad iyo cadaalad xumo ay kala googoysay, Soomaaliya oo acdaadu ay kala googoysay. waxaa ka soo ifbaxay fasahaad aad u badan oo fasahaadka uu kow ka yahay gabdhaheennii yaryara oo maalin walba aan maqlayno gabadh 10 jira, gabadh 8 jira baa la kufsaday, mid ka yar ayaa la kufsaday. waxaan ka codsanayaa culummada haddana la dilay, waxaan ka codsanayaa culummada inay arrintaas berri labada qodob inay ku soo qaataan oo bulshada laga wacyigeliyo oo masaa'ilka xukunkooda dadka loo caddeeyo, dadka mas-uuliyiinta ee gacanta ku hayana ee mas-uuliyadda ay gacanta ugu jirtana in lagu dhiirigeliyo dadka noocaas oo kale ah in xaqoodii la mariyo, xaqi ilaahay uu mariyey in la mariyo. labadaa codsiban maanta waxaan ka dalbanhayaa a'immada Soomaaliyeed ee masaajidada gacanta ku haya meel walba oo ay adduunka ka joogaan. waxaana ku qanacsanahay haddii masjid walba jumcadan arrintaa lagaga hadlo, bulshada wax badan baa iska bedeli. kelimada igu dambaysa in nadwooyin arrintan laga qabto oo kulamo laga qabto oo xoogga la saaro. fasahaadkan haddii laga aamuso, wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. waxaad ogaataan yaa
أئمة الإسلام علماء الصوماليين مساجدنا جوجتاي reerkaaga iyo gabdhahaaga iyo caruurtaada loo soo dhacaya hadaan fitnadan ayada laga hortagin culumada Allah aad baan idin jecelahay mustawiyaadkiina oo dhan baa ku salaamaya qof walba cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo juhdigiisa meeshu joogo ayaan ku salaamaya aadna waa idin jecelahay badbaadada ummadda bacd Allahina waa idinka wa ila liqaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.